hooyo waqti dheer uur lahayd isla markaana uur kala yeelatay muddo 3 jeer ah. hooyo Bishaare Xuseen Cusmaan waa hooyo Soomaaliyeed oo muddo 5 sano ah caloosha ku siday mid ka mid ah caruurteeda. waxyaabaha mucjisada leh inta badan dadka ay isweydiinayaan waxay ahayd in hooyo Bishaaro muddada 5 sano ah ay caloosha ay ku siday cunugani in Ilaahay uu ku irsaaqay in ay dhasho 3 caruur ah oo uurkan kadib ay qaaday uurkooda. hooyada oo duruufo iyo dhibaatooyin dhinaca caafimaadka soo wajahay xaaladeeda caafimaadkana isbitaalo dhowr ah ay weydiisay ayaa ugu dambeyntii Dr. Khalid Suleymaan waxa uu ku wargeliyay hooyadani in ay leedahay uurka noocan ah si fudud ayaa loogu arki karaa kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound-ga. waxaan arkay oo aad qof u fiirsada mooyaane cid kale ayna arki karin in meeshii ilmo uu ku jiro 8 bilood ah. iyadana sida aan markaan history-geyga ama taariikhdeeda dib u raacay waxa ay ii sheegtay markuu ilmuhu 8 bilood u marayay dhiig oo kale uu ka yimaado sida dhicis oo kale ah kadib waxba wax dhakhtar saawmay sii tagin ilmihii kala caloosha galay way la yaabtay markii kaas ay dhashay kadib wali ka hadda waxba meeshii ku sii harsan adu waxa ay sheegtay dhowr hospitaal oo kala duwan in ay tagtay laakiin war sax ah aan loo sheegin marka waxaan ku yiri ilma la falfoobay ayaa ku jira caloosha. hooyo Bishaare Xuseen Cusmaan markii la ogaaday kadib in muddo 5 sano ah caloosheeda ku jiraan ilmo yar ayaa waxa isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir loogu sameeyay qaliin. hooyo Bishaare ayaa ugu horeyn waxa ay ka warbixisay xaaladeeda caafimaad iyo sidii ay ahayd markii ay uurka lahayd. 2012 ilaa 2012 dhakhtar la wareegay. marka waa joogana baabaa loo mareynay ka bacdi aad 2012 ka wiil dhalay. ka bacdan la wiil kale Ilaahay ee waxaan sidii ay ugu jiraan. marka hadda helnay oo isbitaal sharxay inay sameeyso ku jirin aysan ku shaqo lahayn oo calooshaas Ilaahay ku abuuray. uurkan waxa uu ka dhacaa tubooyinka ugxaanta caloosha iyo qaybaha kale ee uurku jirta. sidee ku dhici kartaa in hooyo uur leh uur kale qaado? in hooyo Bishaare muddo 5 sano ah iyadoo xaamilo ah in ay uur kale ay qaado caruur kalena ay dhasho siyaabaha keeni kara ayaa Dr. Khalid Suleymaan waxa uu ku warbixiyay sida tan. horta waxaan waa wax minka ka baxsan marka minka maadaama uu ka baxsan yahay waxa shaqeynaya laga dhalayaana mostly waxa weeyaan waa ilmo galeenka marka maamadani uurka waxa ay ku yeelatay wax kala maaha ilmahani caloosha ayuu dhaafsiisan yahay waxaana afka qalaad lagu yiraahdaa ectopic pregnancy waxa uu dhacaa boqolkiiba hal qof ayuu ku dhacaa. uurkan qaldama waxaa loo yaqaanaa ectopic pregnancy. haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato ka daawo linkiga hoose ee muuqaal aan horay uga hadalnay ama ka akhri website-keena. dhibaatada ugu badan ee hooyo Bishaare Xuseen Suleymaan ay kala kulantay muddadii ay xaamilada ahayd ayaa waxay ku sheegtay in ay tahay markii ay uur kale ay qaado in dhibaatada ugu badan markaasi ay soo wajihi jirtay. marka Ilaahay uu ii gargaaro midkan oo laga soo baxana kan waa iska sii fududeysanayo ilaa haddana markaan uur kale yeesho madan culayskiisa dareemayo haddana markaan dhalo aan iska sii fududeysanayo bal marka dambe inay wax sii baabeeyna haddaan aragnaa dhaqaatiirta la soo xariiro. dhacdadan ku aadan in hooyo sanada uur leh ay haddana ay dhasho ilmo kaleete sida ay ku dhacday iyo in lagu arkay hore gudaha dalka Soomaaliya ayaa Dr. Khalid waxa uu ku sheegay in dhacdadani ay tahay dhacdadii labaad ee la kulmay. islaantaas waxaan xitaa isku dayay inaan oo waliba Muqdisho dhexdeeda ah 2 sano ka hor baan arkay kadib waxaan isku dayay inaan dhaqaatiir la kulmiyo islaantii aragtideedu waan waayay meel alla meel ay ku taqaliin iyo waxaasi ama diyaar uma hibay tiri meel alla meel jaan iyo cirib ay dhigtana waan waayay kiiskii labaad ee soo maray noloshayda ayuu ahaa. hooyo Bishaare Xuseen Cusmaan ayaa waxa ay tahay hooyo dhashay 6 caruur ah oo mid ka mid ah caruurteeda muddo 5 sano ah ay caloosha ay ku suday. Keen Cumar Makaraan.